markaynu ka hadlayno halgankii xornimo doonka Soomaalida waxaa hubaal ah in qofka ugu horeeya ee maskaxdaadu ku soo dhacayso uu noqonayo Sayid Maxamed Cabdulle Xasan. هذا كوفي لو جيت أيام دنيا جوجيني هذيك جيتكي لغو ودي جميلاني wuxuu ahaa hogaamiye ku suntana hal adayg iyo geesinimo wax loo dhigo aysan jirin haliyay taariikhda ummadda Soomaaliyeed ka galay baal dahab ah xushmad iyo qadarinna ay u hayaan dhammaan ummadda Soomaaliga ku hadasha bari iyo galbeed koonfur iyo waqooyi. haddaba kumuu ahaa Sayid Maxamed Cabdulle Xasan muxuuse ku mutaystay qadarintan iyo mudnaantan. Sayid Maxamed Cabdulle Xasan wuxuu noolaa muddadii u dhaxaysay 1856 ilaa 1920. wuxuu ahaa hogaamiyihii daraawiishta lana dagaalamay gumaystayaashii Ingiriiska, Talyaaniga iyo Xabashida isagoo kula dagaalamay Somaliland iyo gobolka Nugaal iyo Taleex. sayidka oo gumaystuhu ugu yeeri jiray Maad Mullah oo la jeeday wadaadkii waalnaa ayaa ka galay taariikhda ummadda Soomaaliyeed baal dahab ah oo ay caruur iyo ciroolaba ku faanaan. Sayid Maxamed Cabdulle Xasan wuxuu dhashay sanadku markuu ahaa 1856 wuxuuna ku dhashay ceel u dhaxeeya Woodward iyo Buuhoodle. markii uu 7 jir noqday ayaa lagu daray dugsi Quraan. markii uu 10 jirsaday wuxuu dhameeyay Quraanka. intii aanu 20 jirsanna wuxuu gaaray darajada sheekhnimada. sida qoraallo badan ku xusan Sayid Maxamed waxa uu aqoon barasho diineed ugu kicitimay dhulal badan oo ay ka mid ahaayeen magaalada Herer dalka Suudaan iyo magaalada Muqdisho. muddo kadibna waxa uu ku soo laabtay deegaankiisii. sanadku markuu ahaa 1894 ayuu Sayid Maxamed Cabdulle Xasan iyo koox la socotay u kicitimeen magaalada barakaysan ee Makka si ay u soo xajiyaan. markii ay xajkii guteen waxa uu sayidku ku biiray ardaydii Sheekh Maxamed Saalax oo ahaa sheekhii aasaasay dariiqada saalixiyada. wuxuuna halkaasi ku sugnaa muddo sanad iyo bar ah. ugu dambeyntiina wuxuu ka soo qaatay Maxamed Saalax inuu dariiqadaasi waa saalixiyade madax iyo sheekhba uga noqdo dhulka Soomaalida. markii uu ka soo noqday Makka wuxuu ka soo degay magaalo xeebeedka Berbera. sheeko isaga iyo ciidamadii gumaystaha dekedda Berbera joogay dhex martay dadkana aad ugu faaftay ayaa ahayd in Sayid Maxamed markii uu ka soo degay marsada Berbera gaalkii gumaystaha ahaa uu weydiiyey inuu alaabtii uu watay sayidku uu canshuur ka bixiyo. markaasuu Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ugu jawaabay, adiga kolkii aad imaanaysay halkan iyo canshuur kaa qaaday. ha yeeshee qofkii u turjumayay ninkii caddaanka ahaa ayaa u sheegay in ninkani uu wadaad waalan yahay. waxaana halkaasi ka raacday naanaysta kolkii dambe uu gumaystihii Ingiriisku u adeegsan jiray ee ahayd wadaadkii waalnaa. markii uu magaalada Berbera ku nagaaday waxa uu Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ku soo bandhigay halkaasi dadkiina uu ugu yeedhay dariiqadii saalixiyada. waxaase ka hor yimid culimadii dariiqada qaadiriyada ee deegaanadaasi uga soo horeeyay. waxaana dhashay doodo badan. magaaladiina waxaa ka aloosamay buuq diimeed. dadka qaar waxay xusaan in sayidku markii uu taageero u waayay dariiqadiisii uu Berbera isaga tegay, halka qolyo kalena ay soo tabiyaan inuu magaalada ka bilaabay olole gumaysidiid ah. waxaa la sheegaa in sayidku uu arkay nin baadari ah dabadeedna inta uu ul ama dhagax midkood sida dadka qaybtood ay sheegaan oo ku dhuftay kadibna uu yidhi, ilaahow maanta intaasaan jihaad awoodaa. sanadkii 1898 ayuu sayidku ka ambabaxay magaalada Berbera. intii uu dhexda ku sii jiray wuxuu sii maray xarun dhaymoole ku taalay oo diinta Kiristaanka lagu faafinayay. sida la soo tibiyana wuxuu halkaasi kula kulmay caruur Soomaaliyeed oo xitaa magacyadoodii magacyo gaal loo bedelay. waana halkan meesha uu si dhab ah uga bilaabmi doono loolankiisii gumaysidiidka ahaa. kadib wuxuu sayidku uga sii gudbay ceel qoryo weyn la yiraahdo oo Caynabo u dhow. halkaasi oo uu ka samaystay waab ama goob uu ku tukado dadkana diinta ku baro. waxaana halkaasi ka abuurantay xertii ugu horeysay ee raacda sayidka. duubkii caddaa ee astaanta uu ahaana loogu xidhay. waana meesha ay xerta sayidku kula baxday magaca daraawiish. muddadii uu halkaasi deganaa waxay hawshiisu ku koobnayd diindhigid iyo dib u heshiisiin uu ka dhex sameeyey beelihii deegaankaasi ku dhaqanaa. waxaa kale oo la xusaa
in dadkii deegaankaasi degganaa xoolo badan ay siiyeen sayidka. dadka wax ka qoray taariikhda daraawiishta waxay sheegaan in sayidku waday olole uu dadka ku kicinayo kuna abuurayo kacdoon gumaysidiid ah. wakhtigaasi gumaysigii Ingiriisku aad isuguma ballaadhin dhulka gudaha oo ilaalo inuu marmar u diro mooye awood badan kuma lahayn. sanadku markuu ahaa 1899 bishii afraad waxaa si rasmi ah looga warhelay inuu sayidku aruursaday ciidamo gaaraya ilaa 3,000 oo askari. kowdii bishii sagaalaad ee isla sanadkaasi ayuu sayidku wuxuu warqad u diray gumaystihii Ingiriiska. dhambaalkii uu dirayna waxaa ka mid ahaa: waxaan idin ogeysiinayaa inaad wax kasta oo aad rabteen samayseen, diintayadii wacnaydna aad cadaadiseen. haddaba kala doorta laba mid: dagaal haddii aad doonaysaan waannu ogolnahay, haddaad nabad doonaysaanna sido ama cashuur bixiya. waana maalinta ay si rasmi ah u bilaabantay 20 sano oo uu sayidku dagaal kula jiray gumaystihii Ingiriiska, Talyaaniga iyo Xabashida. sanadkii 1901 ayuu gumaystihii Ingiriiska iyo daraawiishtii dagaalkii ugu horeeyay dhex maray. waa dhacdada la baxday Afbakayle. ciidanka gumaystaha khasaare badan ayaa loo geystay, daraawiishtii qudhoodana waa la wiiqay. sanadkaasi iyo kuwii ka dambeeyeyba dagaaladu si joogto ah ayay u socdeen. meelo badan ayaa fooda la istaray, waxaana ugu magac weynaa goobahan Fardhidin, Beerdhiga, Cagaar Weyne iyo Jidbaalle. dagaaladaasi lagu riiqday ee kala dambeeyey waxaa ka mid ahaa dagaal 1903 dhex maray gumaystihii Ingiriiska iyo daraawiishta oo ay daraawiishtu ka dileen Ingiriiska 9 sarkaal iyo 189 askari. waxay keentay in daraawiishtu u durugto xeebta bariga. 1904 ayay daraawiishtu fadhiisin ka dhigatay degmada Ayl. halkaasina waxay ka dhisteen 4 qalcadood oo kala ahaa Daawad oo laga dhisay xeebta Ayl, Ilig, Gobac iyo Badey. 22 bishii afraad sanadkii 1904 ayuu Ingiriisku duqeyn dhanka xeebta ah ku burburiyey qalcadda Ilig. Talyaaniga oo ka cabsi qabay in daraawiishtu ku durugto deegaanada uu maamulayay ayaa wuxuu ka shaqeeyey in heshiis dhex maro Ingiriiska iyo daraawiishta. wada hadallo iyo waan cadan ka soo bilaabantay oo uu daraawiishta uga wakiil ahaa Sheekh Cabdalla Shixiri ayaa ku dhammaatay in heshiis la kala saxiixdo 5 bishii saddexaad 1905. heshiiskaasi wuxuu ka dhacay Ilig. qodobadii ka soo baxayna waxaa ka mid ahaa in daraawiishta looga ogolaado dhul qaybtii uu Talyaanigu xukumayay, in sayidka iyo daraawiishta la siiyo xorriyad diimeed iyo madax bannaani ganacsi, in daraawiishta deegaanada raacsan ay iyagu ka taliyaan. heshiiskani dhanka daraawiishta wuxuu u fududeeyey inay saldhigtaan maamul iyo kala dambaynna samaystaan. waxay heleen kobac dhaqaale iyo mid maamul. intii nabadda la ahaana waxaa la xusi karaa inuu jiray dagaal dhanka afka ah oo u badnaa gabayadii sayidku tirinayay iyo kuwo isaga loo soo tiriyey. sanadkii 1909 ayuu gumaystihii Ingiriisku wuxuu ka soo guuray dhulka miyiga ah isagoo isku aruurinaya xeebaha. wuxuuse qaaday tallaabo aan loo aayin oo ahayd inuu hub u qaybiyey beelihii degganaa dhulkii uu ka soo baxay si ay isaga difaacaan daraawiishta haddii ay soo weeraraan. tallaabadan ayaa ka dhignayd mahmaahda odhanaysa lafa maroodi iyaga la isku jabiyaa. ha yeeshee waxaa dhacay arrin aanu gumaystuhu maanka ku hayn ama ku talagal u sameeyey. beelihii ama reerihii hubka loo qaybiyey waxay u adeegsadeen inay iyagu isku dhacaan. waxaa dhacday colaad baahsan iyo macluul galaafatay dadkii dalka ku noolaa, waana xilliga loo baxshay xaaraamo cune. dabayaaqadii 1909 ayay daraawiishtu u soo guurtay dhanka Nugaaleed, waxayna degeen meesha la yiraahdo Dameer oo laga dhisay qalcad la yiraahdo Daarcad. Taleexna waxaa laga dhisay 4 qalcadood oo kala ahaa qalcaddii Silsilad oo ahayd xarun loogu talagalay inay ku hoydaan ilaa 5,000 neef oo xoolo ah iyo 2,000 oo ciidan ah. qalcadda Falaad oo ahayd taliskii iyo xaruntii sayidka. qalcaddii Daawad oo loo dhisay dadka martida ah iyo qalcad loo baxshay Daar Ilaalo oo ahayd qalcadda laga ilaalinayay xarumaha kale iyo deegaanka oo dhan. waxaa jiray qalcado badan oo deegaano kala durugsan laga dhisay. markii ay daraawiishtu soo degtay Taleex ayuu gumaystihii Ingiriisku 1912 dib ugu soo noqday dhulkii miyiga ahaa ee uu ka guuray, wuxuuna sameeyey ciidan rakuubley ah oo uu hogaamiye ka yahay Richard Cofield. xilligaasi daraawiishtu waxay lahayd ciidan dooxato la yiraahdo oo wareega, saldhigna aan lahayn,
waxay hawshoodu u ahayd in gumaystaha Ingiriiska argagixin joogto ah ay ku hayaan ciidankaasi iyo ciidankuu hogaaminayay Coofil ayaa sanadkii 1913 meel dulmadoobe la yiraahdo uu ku dhex maray dagaal lagu riiqday oo ruugal la baxay khasaare baaxad leh ayaa soo gaadhay labada dhanba gumaystihii Ingiriiska waxaa halkaasi kaga dhintay hogaamiyihii ciidanka rukubleyda ee Coofil sayidkuna dilka ninkaasi wuxuu ka tiriyay gabay ashqaraar leh oo caan noqday adaa Coofilow jiitayaan dunida joogayni adiga jidkii lagu wadi jimiclaaneede jahannaba la geeyo haddaad aakhiru jahato nimankii janno kacay warbay jirin shaleeye sanadkii 1918 ayay daraawiishtu taleex ka guurtay una diga rogatay jiidaali oo qalcadii uga dhisnayd muddo kadibna waxay saligteen miraashi halkaasi ayayna ku nagaadeen wuxuu bilaabay gumaystihii Ingiriisku sanadku markuu ahaa 1919 howlgal aan la shaacin oo uu doonayay in lagu soo afjaro iska caabinta muddada dheer socotay ee sayidka iyo daraawiishtu wadeen howlgalkan oo aad loo qariyay waxa ka qayb qaatay ciidanka badda ciidanka cirka iyo ciidanka dhulka daraawiishtii miraashi fadhiday markii kadis looga dhigay duulaan aysan waxba ka ogeyn waxay u baxsadeen dhanka taleex afartii bishii labaad sanadkii 1920 ayay diyaaradihii gumaystuhu duqeeyeen qalcadii daraawiishta duulaan lagu tiriyo inuu ahaa duulaankii ugu horeeyay ee diyaarado loo adeegsado qaaradda Afrika 7 bishii labaadna ciidankii Ingiriiska ayaa la wareegay xaruntii taleex sayidka iyo koox la socotay ayaa u jihaystay dhankaasi iyo galbeedka halkaasi oo ciidan aan badnayn oo daraawiish ah ay deganayeen muddo yar kadibna gumaystihii Ingiriisku ergo culimo iyo salaadiin ka kooban ayuu u diray sayidka si loogu qanciyo inuu hubka dhigo oo uu nabad qaato ha yeeshee waxba kama soo bixin waanwaantaasi ugu dambayntiina sayidka iyo ciddii raacday waxay tegeen Iimey halkaasi oo uu sayidku ku geeriyooday ilaahay naxariistiisii jannaha ka waraabiye dabayaaqada sanadkii 1920 isaga oo 64 jir ah halkaasina waxa ku soo idlaatay nolosha mid ka mid ah shakhsiyaadkii ugu saamaynta badnaa taariikhda kacdoonkii ay ummadda Soomaaliyeed ku doonaysay inay isaga riddo heeryadii gumaystaha